fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janaalka like inoo saar iyo subscribe si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya mahadsanid. 4 Agost maanta oo kale qarax xooggan ayaa waxa uu ka dhacay dalka Lubnaan gaar ahaan degad ku taala magaalada Beirut ee dalkaasi. sanad ayaa ka soo wareegatay markii uu qarax xooggan uu ka dhacay dalka Lubnaan, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xumaa ugu dhimashada iyo dhaawac badnaa ee abid soo mara dalkaasi ayay ahayd. Lubnaan ayaa wixii intaasi ka dambeeyay cagaha la gashay xaalado murugo ah, dhaqaale xumo, caafimaad darro iyo dhibaatooyin badan. ilaa iyo haddana dhibaatooyinkaas waa ay ka jiraan dalkaas. qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Beirut ee dalkaasi Lubnaan, caasimadda oo dhan ayuuna ruxay. qaraxii ka dhacay dekedda Beirut waxa uu ahaa mid ruxay guud ahaan caasimadda dalkaas. waxaa la sheegay in 2750 tan oo ah maadada ammonium nitrate si aan ammaan ahayn loogu keediyay maqaasiin halkaasi ku yaalay muddo 6 sano ah. dad fara badan ayaa qaraxaasi ku dhintay, in ka badan 6,000 oo qofoodna dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray. dadka qaar dhaawacyadoodu waxay ahaayeen kuwa halis ah, waxaana loo qaadayay waqtigaas dalal ku yaala Yurub oo ay ka mid tahay dalka Turkiga. qaraxa markuu dhacay xaaladdu sidan ayay ahayd, daqiiqado kooban ayayna sidan isku bedeshay. qarax markuu dhacay kadib ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee dalkaasi Lubnaan Xasan Diyaab ayaa warbaahinta la hadlay. waxa uu yiri musiibadii nagu dhacday waxay ahayd mid qaran, aad ayaan uga xunnahay, dadkii ku geeriyoodayna waxaan u direynaa tacsi ehladooda. xaaladda ka hor wadanka Lubnaan sidee ahayd? xiisad siyaasadeed ayaa ka taagneyd Lubnaan. waxaa dhacay mudaharaadyo loogu soo horjeeday qaabka ay dowladda u mareysay dhaqaale xumida dalkaasi ka taagneyd, tii ugu darneed tan iyo dagaaladii sukeeye ee dalkaasi ka socday 1975 ilaa 1990. inta badan shacabka ayaa dhaqaale xumida u aaneynaya madaxda dalkaasi muddada soo hogaaminayay ee keeni waayay isbeddello xal u ah dhibaatooyinka waddankaasi ragaadiyay. shacabka dalkaasi ayaa la tacaalayay koronto la'aan, biyo yari iyo daryeel caafimaad oo liita. qaraxii ka dhacay Lubnaan waxa uu ka dhacay meel u dhow halkii lagu beegsaday ra'iisul wasaarihii dalkaasi Rafiiq Xariiri 15 sano ka hor, kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu qarxiyay. dibadbaxyadii xilligaasi dhacayayna sidaan ayay ahaayeen. shacabku dareenkooda iyo shucuubtoodana waxay ahayd mid aan la xakameyn karin. الشعب فقد الثقة بالطبقة الحاكمة. نحن جايين لهون طالب حقوقنا، ما عم طالب شيء. ugu dambeyn Lubnaan weli waxaa ka taagan dhibaatooyin kala duwan, dhaqaale xumo, caafimaad darro, cunno yari iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday ayaa guud ahaan waxay saameeyeen dadkaas. wasiiro badan oo ka tirsan xukuumaddii dalkaasi Lubnaan ayaa is casilay, welina ma jiro waxwar oo laga soo saaray qaraxii ka dhacay dalkaasi Lubnaan. Lubnaan 4 Agost 2020 maalin aad u xun ayay u ahayd, maalin aanan u wanaagsaneyn shacabka ku nool gudaha dalkaasi, maalin si gaara ay u xusuusnaan doonaan dadka ku nool gudaha dalkaasi. muuqaalka intaas ugu soo gabagabaynaynaa. waad mahadsantihiin asxaabta kale gaarsii.